Tala'al bedru aleyna. Ay doğdu üzerimize. Min seniyetil veda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jeediyay khudbad dheer oo uu ku difaacay islaamka iyo Nabi Maxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee. Erdogan ayaa khudbadan ka jeediyay baarlamaanka Turkiga waxaana uu ku bilaabay sidan: Değerli kardeşlerim, إخوتي الكرام، sharaf ayay aniga iyo shacabka Turkiga noo tahay inaan si daacad ah ugu istaagno difaacidda Nabi Maxamed iyo ka hortagista aflagaadeynta loo geystay rasuulkeena sharafta leh ee aan nafaheena ka jecel lahay. ma doonayo xitaa inaan eego kartoonka lagu maagay rasuulkeena aan nafteena ka jecel lahay naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee si aan qiimo ugu yeelo wargeys bilaa anshaxa. uma baahni inaan waxba ka idhaahdo wax iskuma falayaasha nebigeenna suurad xumeeyey oo aflagaadeeyey. runtii waan ka yaqyaqsooday asluub darrada ay ku wajahayaan nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadee kuwa suurad xumaynaya nebigeenna oo u aflagaadeynaya sayidkeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee si ay u gaaraan dana siyaasadeed. waxaan leeyahay farihiina ka laabta oo noo daaya muqadasaadkeenna. sayidkeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sallallahu calayhi wasallam inteena difaacaysa waxaan ku jawaabaynaa jawaabtii 1400 oo sano ka hor ay bixiyeen dadkii reer Madiina. maxay yiraahdeen? dara'al badru calayna. Peygamberimiz Efendimiz'e hakareti savunarak kararmış kalplerini cesaretlendirmeye çalışanlara cevabı 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım. Neydi o? Tala'al bedru aleyna. Ay doğdu üzerimize. Min seniyetil veda. Veda tepesinden. Vecebe şükru aleyna. Şükür gerekti bizlere. Ma da'a lillahi da. Allah'a davetinden. Eyyuhel meb'ûthü fînâ. Ey bize gönderilen elçi. Ci'te bil emril muta. Yüce bir davetle geldin. Şerraftel Medine. Geldin Medine'ye şeref ver. Merhaben ya hayrada. Merhaba ey sevgili. maka ilaa Madiina, Afrika ilaa Aasiya, ilaa Yurub iyo dhammaan daafaha dunidoo dhan meel kasta sharaf ayuu ku leeyahay xabiibkeenna Nabi Maxamed. mar kasta waa nebigeenna, waa sayidkeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. inaan u istaagno difaacidda nebigeenna sallallahu calayhi wasallam waa arrin sharaf inoo ah kulligeen. إن الوقوف أمام الهجمات التي تستهدف نبينا هي قضية شرف بالنسبة إلينا. walaalayaal, inta aan ka neefsanayno neefta u dambaysa, inta aan nool lahay, haddaan ka aamusno oo aynaan radin nebi maxamed oo horteenna lagu aflagaadaynayo, waxayba markaas ka dhigan tahay innagoo dhimannay gebi ahaanba. aynu iska dhimanno markaas haddaynaan ka jawaabayn. arrintan waa inaan nafaheenna u hurraa si daacada. qoorta miyaan u dhiibannaa kuwaas oo miyaan iska aamusaynaa? kuwaas miyaan sharafkeenna iyo qiyamkeenna uga tanaasulaynaa? miyaan ka jeesanaynaa oo dareenkeenna meel kale miyaan u jihaynaynaa iyadoo horteenna waxaas lagu samaynayo? laakiinse maya, shacabka Turkigu wuxuu ku dhagan yahay diintiisa iyo qiyamkiisa, mana ka aamusayo weligii, kamana qaadanayo mowqif liita oo daciif ah. ixtiraam la'aanta rasuulkeenna ay u hayaan hogaamiyaasha Yurub ayaa u sii faafaya muddooyinkii dambe sida kansarka oo kale. nebigeenna Maxamed ee loo gafay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagu wuxuu ixtiraami jiray dadka isagoon ku tixgelinayn waxa uu aaminsan yahay. wuxuu sidoo kale ixtiraami jiray diimaha oo dhan. dhulkeenna Turkiga waxa ku yaala 435 kaniisadood. mana faragelino
qofna waxa uu aaminsan yahay. waxaan ka soo horjeednaa in argagixisada lala xiriiriyo diinta islaamka. argagixiye kasta oo dila dad aan waxba galabsan si uu hadafkiisa u gaaro waa dembiile ee ma aha qof muslim ah. waxaan la hadlayaa reer galbeedka kulligood. soo idinka ma ahayn kuwii 100,000 oo qof ku dilay ruwaanda xilligii aad joogteen? soo ma tihiin idinku kuwii malaayiinta qof ku dilay jazaa'ir iyo dhammaan wadamada Afrika? idinkoo doonaya macdan iyo dahab ayaad ku disheen malaayiin dad oo waxba galabsan. waxaad tihiin dhiigya cabyo. maantana isla wixii aad horay u samayn jirteen ayaad raadinaysaan. fiiri Lubnaan, masiibo ayaa ka dhacday. waad aadeen idinkoo weji kale leh. maxaad ka doonteen Lubnaan? miyay idin suuro galeen waxaad u tagteen? Lubnaan waa maya, idinma suuro gelin, sababtoo ah waa laydin fahmay. waa laydinka soo cayriyey halkaas. waxaan leeyahay kuwa cadowga u ah islaamka iyo Turkiga waxay ku qaraqmi doonaan xaasidnimada iyo nacaybka ay ku galeen magaca xorriyatul qowl. arrimahani waxay calaamad u yihiin inay Yurub dib ugu laabanayso xilligii bahalnimada iyo jaahilnimada. waa Cabdisaaq Jubbo, intaan dib u kulmayno. nabadgelyo.